dadka qisaskooda akhri videoska daawo podcastyada dhageyso culayska kaliya ha qaadin ilaahay subxaanahu wa ta'aala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha waxay ka dhigan tahay qofna looguma talagelin inuu kaligii culayska qaado ehelkaaga waad garanaysaa adeerayaasha waad taqaanaa abtiyaasha waad taqaanaa lamaanahaaga waad garanaysaa qofkaad leedahay waa soft spot meel buu ka dabacsan yahay at least dhegtuu ku amaahin karaya la hadal ku dhiiro inaad caawimo raadsatid ku dhiiro inaad iska warhaysid wiigaaga maxaa dhacay bishaadii maxaa dhacay sanadkaagii maxaa dhacay maxaa ku saameynaya xidhiidhadaadu waa noocma cuntadaadu waa sidee hurdadaadu waa sidee dadka kula hadla kuwaad la shaqayso kuwa aad aragtaan sidee bay kuu saameynayaan 24/7/8 waa inaad iskaan garaysaa environmentkaaga ku saameynaya waxaad cunaysaa ku saameynaya hurdadaadii intee leeg tahay baa ku saameynaya ehelkaagu hadday toxic yihiin baa ku saameynaya fikradda iska samir iska dulqaado iska aamus maxaa la dhahaa waayahaaga laabtaada ku hayso dad dhimanayso sida ay ubax sheegaysay dhareerkaada iska duwaa way ku halaagaysaa naftu waa amaano ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina geliyay inaan ilaalino caafimaadka dhimirkeena sidan ka jirkeena u ilaalino ayaan ka horta idinkula wada dardaarmaya buugayguna intaasun buu xambaarsan yahay inuu qofka sariirtiisa kaliga ku ah ee sariirtiisa iyo waxa la yiraahdo barkimadiisa ku dul ooyaya aan islaahay warni weyn oo gadhku cireystay baa tahay aan lagu arkin adigoo cabanaya ama caruurtaadi baa kugu tiirsan ama ubadkaagi ama xaaskaagi ama nin baa tahay waxa weeyaan wax laga hadla maaha marka waxaan kula talinayaa bilaa khaas ragga waxaan ugu talinayaa in caafimaadka dhimirkiina aad ka war haysaan reeru idinkeedu tiirsan yihiin ubadku idinkeedu ku tiirsan yihiin hooyooyinku idinkeedu ku tiirsan yihiin ubadku idinkeedu ku tiirsan yihiin adduunka dhan bad xambaarsan tihiin anigoonan meesha ka saarin culayska ay dumarku sideen marka caafimaadka dhimirkiina ka warhaya haddaanad qofka wax kale u tarayn oo dhaqaale aanad ku taageeraynin oo aanad support system u noqon karaynin oo aanad fahamsanaysaa loo waxa weeyaan caawiyo qof kale at least dhegtaada amaahi at least waxaad tilmaantahay waxaad tirahaa xagga caawimo ka raadso marka intaasun buu bugaygu daaran yahay insha Allah wuxuu imanayaa Mondayga haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo I hope inaad idinkuna soo noqon doontaan si aad buugga insha Allah u aragtaan waa mahadsantihiin